habeenkani uma ahayn mid caadi ah tuuladan marka loo eego labadooda waxay la noolaayeen muddo 20 sano ah murug iyo tiraanyo taabatay qalbigooda balse inkastoo ay sidaas ahayd haddana xaaskiisa wuxuu u sheegayay waayahooda fiican in uu imaan doono dhibaatadaana ay ka bixi doonaan su'aashii ugu weynayd ee isweydiinayeen ayaa waxay ahayd maxaan ilmo u heli lanahay sida qoysaska kale su'aashani waxay ahayd mid culus oo qalbigooda ka dhigtay mid quustay samirkii ay samrayeen ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii yaraanayay habeenada ka mid ah ayuu fadhiistay odiga reerka bannaanka gurigooda isaga oo eegaya guryaha dadka kale waxaa dhegihiisa ku soo dhacay qosolka carruur ciyaarayso wuu dhoola caddeen aan qalbiga jirin ayuu dhoola caddeeyey isagoo rajo ka qaba in gurigiisu uu mar uun laga maqlo qosolka carruurtaas oo kale xaaskiisa ayaa waxay soo istaagtay gadaashiisa gacanteeda ayay saartay caloosheeda oo maran wayna dhoola caddaysay iyadoo qalbiga ka gubanayso lehna qadarka eebbe waan ku samraynaa maalin maalmaha ka mid ah odiga guriga wuxuu go'aansaday inuu aado masaajidka xaafadda si uu cashar uga soo dhegaysto kadib salaada makhrib wuxuu fadhiistay safkii ugu dambeeyey isagoo murugii ay ka muuqato laakiin wuxuu isku samir siinayaa in maalmihiisii wacnaa ay soo socdaan rajadiisa xagga allahna uusan ka quusanen shiikhii ayaa soo galay masjidka waxa uu kala furay kitaabkiisii waxa uuna bilaabay in uu cod macaan ku akhriyo aayado qur'aan ah oo qalbiga dhegaystayaasha taabtay wuxuu akhriyey aayada 10aad ee suuratu nuux فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ilaa aayada 12aad ee suuratu nuux kelimada wabaniin oo ah micnaheedu carruur markuu maqlay qalbigiisii ayaa dib u nolaaday oo rajo ayaa soo gashay odigii kadib markuu dhammaaday casharka odigii wuxuu u tegay sheekhii isagoo ka rajaynaya in uu jawaab qalbigiisa rajo gelisa ka helo wuxuu si murugo leh u weydiiyey sheekh qof 20 sano ilmo dhali waayey ma suurtogal baa in dib ubad u helo sheekhii ayaa si deggan ugu jawaabay haddii qalbigaaga si dhab ah u towbad keno allah wuxuu kuu furi doonaa albaabo aadan arki karin ama qiyaasi karin ninkii wuu ku farxay jawaabtaas oo wuxuu ku laabtay gurigiisa wuxuu galay qolkiisa wuxuuna bilaabay in uu gacmihiisa kor u taago isagoo ku celcelinaya istaghfirullah mar kasta oo uu ku celceliyo murugadiisa ayaa sii yaraanaysay ilaa uu qalbigiisu iftiin dareemay wuu sii waday oo kama daalin in uu ku celcelinayo istaghfirullah suuqa dhexdiisa ka hor intuusan seexan iyo salaada subax kadib ilaa istikfaartu ka noqotay cod dabiici ah isaga celceliyo mar kasta iyo xilli kastaba maalmo kadib xaaskiisa ayaa uur qaaday iyadoo farxad darteeda qusul gariiraysa ayaa waxay ku tidhi waxaan u malaynayaa inaan uur leeyahay ninkii wuu istaagay wuxuu ku sigtay in uu farxad darteeda u dhinto wuxuuna u ooyey sidii dhimashadii aabbihii qof loo soo sheegay oo kale tan iyo maalintaas wuxuu dadka la wadaagay qisadiisa wuxuuna ku dhahayay runtii maan arag wax albaab u furaya sida istaghfirullah qisadani maahan oo keliya sheeko nin iyo ilmo balse waa sheeko ku saabsan albaabka samada ee aan la xirin gaar ahaan kan loo maro istikfaarta haddii aad ka heshay muuqaalkan laag saar la sii wadaag asxaabtaada adigoo u sheer garaynayo